Kenya kuma qanacsana qiimaha ay Soomaalida ku cunaan maandooriyaha qaadka ah. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bilaabay inuu fuliyo mid ka mid ah ballamadii uu la galay qabiilka Meru ee beerta qaadka ah. Waxaa ka mid ah ballamadii uu hore ula galay inuu kordhinayo qiimaha qaadka lagu iibsado kaasi oo suuqiisu u weyn yahay Soomaaliya. Isagoo la hadlay kumanaan ruux, waxa uu sheegay madaxweyne Ruto inuu la hadlay madaxda Soomaaliya, Somaliland iyo Jubaland ayna isla qaateen in sare loo qaado qiimaha qaadka. Qaadka tago Somaliland waxa uu badi ka yimaadaa waddanka Itoobiya, laakiin Kenya waxa ay hadda doonaysaa inay halkaas iyadana suuq fiican ugu hesho qaadka ay soo saarto. Sidoo kale madaxweyne William Ruto ayaa dhawaan sheegay inuu Soomaaliya u diri doono safiir ka soo jeeda qabiilka beerta qaadka si uu xal ugu raadiyo dhibaatada qiimaha qaadka oo ay muddo fog ka cabanayeen beeraleyda qaadka ee waddanka Kenya. Dhowr jeer ayuu labadii sano la soo dhaafay hakad kooban ku yimid suuqa qaadka ee Kenya iyo Soomaaliya. Sababtana waxaa lagu sheegay inay beeraleyda Kenya cabasho ka qabaan qiimaha qaadka. Fariinta madaxweyne William Ruto waxa ay leedahay laba fasiir oo si taban u saameynaysa Soomaaliya. Mid waa waxa ugu muhiimsan ee Kenya ka yaala Soomaaliya inuu yahay qaadka, sababtoo ah haday siyaasadda ama xiriirka micno leeyahay kuma fakarteen Kenya inay Soomaaliya u dirto safiirka qaadka ahmiyadda koowaad u yahay. Midda labaad waa in madaxweyne Ruto uusan soo hadal qaadin wax kala faa'iideysi labada dal ah. Soomaaliya in maandooriyaha qaadka ay ka soo dhowrsato Kenya ma jiraan wax lagu bedelo. Dowladda Soomaaliya wali kama jawaabin hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Kenya, waxa ayna marka indhaha siyaasadda lagu eego laga dhex arki karaa inuusan Ruto miisaan badan siinin nidaamka ka jira maanta Soomaaliya. Dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa joojisay qaadka ka yimaada Kenya. Sababahana waxaa ka mid ah in lagu xujiyay inay wax ku bedesho suuqa faa'iideysa halka dhinacay tahay. Waxyaabaha ay dowladda Farmaajo ka dalbatay Kenya waxaa ka mid ah inay faraha kala baxaan arrimaha Jubaland iyo inay baasaboorka Soomaaliya ay ka dhigto fiisa la'aan iyo inay dhoofsato qaar ka mid ah wax soo saarka Soomaaliya. Dowladda Kenya waxa ay diiday dhammaan arrimahaas, waxa uuna Farmaajo ka degay xukunka iyadoo uu u xiran yahay qaadka ka yimaada Kenya. Hadda Kenya waxa ay doonaysaa in qiimaha qaadka sare loo qaado suuqiisana la ballaariyo, iyadoo la og yahay dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed. Haddana dowladda Soomaaliya wax aragti ah kama imaanin in ay Kenya kula kalgordoonto dalabkaana culus ama ay dowladdu halkaasi ka dhex raadiso aragti lagu xakameyn karo dhibaatada qaadka. Haddaba sidee u aragtaa adiga?